Somaliland waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo wax kooban saddex ciidan waxaana u yimaadeen soo booqashadaada madaxweyne oo salaamay عليكم ورحمة الله وبركاته ملك سو أدون كجوكتان دمانتين صاحبيال waxaa ku salaamantiin salaanta islaamka maanta barnaamijkeenan ama qobanaheena waxaynu ku soo qaadan doonaa dabcan saddex arrimood koobaad aan soo qaadan doonaa waa Dr. Adna Aadan oo maanta la kulantay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo kale qodobka aynu ku lifaaqaynaa isaguna waxa uu yahay qodobkaas Cabdilaahi Darawal musharax gudoomiyihii horseed oo maanta waxa weeye hadlay laba arrimoodna ka hadlay in madaxweynaha lala shaqeeyo iyo sidoo kale inuu hambalyeeyay madaxweynaha aqbalayna natiijadii dabcan ay soo saareen komishanka qaranka Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland qodobka labaad ee aynu soo qaadanaa waxa uu yahay gudida beesha Habarawal Suudaanka guud ee beesha Habarawal iyo sidoo kale mujaahidiin beesha Sumeer awal ka soo jeeda oo maanta Cabdiraxmaan Ciro la kulmay qodobka saddexaad ee aynu soo qaadanaa waxa weeye saraakiisha Soomaaliland qayb kamid ah oo maanta Cabdiraxmaan Ciro iyaguna la kulmay waayahay waxaan ka codsanayaa haddaba si degan aad muuqaalka u daawato aad la gareyso share gareyso sidoo kale kanaalkana aad subscribe ta saarto si aad u daawato muuqaalada dambe ee aan halka soo gelino ama aad ula socoto waayahay bal waxaad ila daawataan hadalka Cabdilaahi Darawal aan ka horeeye bal labada qodob ee aan ka soo qaadanayo haneynta iyo in lala shaqeeyo Cabdiraxmaan Ciro bal ila daawada imika markaa doonayaa inaan habaneeyo madaxweynaha cusub maxamed cabdilaahi midnimada iyo wadajirka Somaliland iyo kamira dhalinta qarannimada Somaliland waanu kala shaqeynaynaa diyaar baan u leeyahay kala shaqeyno dadweynaha reer Somaliland waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo waqti la siiyo oo mucaarado degdeg markiiba lagu bilaabay aad daawateen ayaan rajeynayaa Cabdilaahi Darawal ayaa waxa uu haneeyay dabcan doorashadii dhawaan ka qabsoontay Somaliland kaasoo uu bogaadiyay komishanka qaranka Somaliland aqbalayna qodobka labaad ee uu ka hadlay waa la shaqeynta madaxweynaha oo yiri yaa la mucaaradin waayahay haddaba ereygaas dul istaaginaa mucaaradnimo maxay tahay mucaaradnimadu maxay tahay sababta loo mucaaradaya xagee ka bilaabmaysaa mucaaradadu Cabdilaahi Darawal iskama oran hadalkaas waxa uu arkay qolo aad iyo aad u aqli yar oo maangaabina oo dabcan ahna dadka Somaliland lugta haya oo qaylo xaasidnimo iyo sidoo kale uqdad inay dadka kala dhex dhigaan doonaya kana shaqeynaya soo faqida taariikho iyo dad dabcan Somaliland ba aan aaminsanin ama Jamhuuriyadda Somaliland ba aan aaminsanin hadaladooda sida aynu ognahay Somaliland qodobka aad iyo aad hadalhaynta u dhaliya waxa weeye dadka Somaliland dibadaha ka soo caaya arrinka aan idin sheegaya waxa weeye Somaliland dabcan waa dawlad waana dawlad dastuur iyo sharci leh waana dawlad nidaam leh waana dawlad xoog leh waa dawlad qaban karta dambiilaha waana dawlad waxa weeye lagu dhex noolaan karo oo amaan loogu dhex noolaan karo weeye oo muwaadinku sharci ku heli karo oo muwaadinku amaan ku heli karo waxaa jirta Somaliland bariyihii u dambeysay shakhsiyaad qaarkood kobiti Muqdisho tagaan haddana afi soo weydiistaan oo ay yimaadaan waxaa jira shakhsiyaad xukuumadii hore ka baqanayay oo dibadda wax ka soo oran jiray dabcan qolo kasta waxaan aaminsanay wuu u furan yahay afisku ay wada saxa ay soo maraan marka qolooyin ka ficil qaatay ayaa iyaguna jira oo waxyaabo noocaas ah iyo akhriya balse dadka noocaasi waxayna fahansaneen inay xukuumadan hadda dhacday ay kamid ahaayeen dad ay oran jiray xataa Soomaaliya anaga ku celinayna Somaliland oo hadaladoodii muuqaaladoodii iyo codkoodiba ay duuban yihiin hadalkayga waxaan uga socdaa inay furan tahay afisku qof kastoo Somaliland soo caay jiray hadii uu dawladda afis weydiisto dabcan afisku waa furan yahay waayo waxa jira shakhsiyaad hadda dhex jooga Somaliland kuwaasoo buuhood lahan inoo muuqda ka furayay xafiisyo ay leedahay nabad iyo nolol maalinkii doorashadu dhacdayna Somaliland ay wax weeye dhex joogay ka horna dhex joogay kadibna dhex joog doona waana wado la jideeyay hadii waxa weeye ay cid canaan ku leedana waxa leh dawladii hore xukuumadii hore waliba kala dambeeyay ayaa waxa weeye canaan ku leh
oo sharcigeena kuma qorro qofka lamaba cafin karo meelay kaga qoran tahay ma jirto intii cafis leh ee dambiyada noocan oo kala ah waxa weeye cafis ayaa dastuurkeena inoogu qoran cidiida waxa weeye dambiyada waaweyn ee la isla yaqaan galay ee aan xagga alle iyo xagga waxa weeye ibnu aadkan laga cafin karin mooyaane qof kasta cafiska wuu leeyahay marka shakhsiyaad ashkhaasta ka ficil qaadanaya balse aan arkahayn gundahooda waxa yaala iyo shakhsiyaadka iyaga ka hoos shaqayn jiray ayaa waxay abuurayaan qaxar iyo dhibaato iyaga haddii shakhsiyaadka la cafiyo balse waxaan ogeyn shakhsiyaad ka dambi badan inay hargeysa joogi jireen oo ay qaarkood mucaaradka caay jireen markii hore markii dambana muxaafidka ay caay jireen oo ahaa kulmiye mucaaradkuna uu ahaa wadani marka waxaanu leenahay qolada horta kuwa hore kasoo meel kusoo tiiriya markaas sidin kuwa cusubna aa ka hadli doontaan haddaba cabdilaahi darawal hadalkiisaas ayaa ah bogaadin iyo in dalka maaragtay dhiskiisa loo istaago lana la shaqeeyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha cusub ee ay yeelatay waayo haddii aan inta cabdilaahi darawal ka imaado waxa maamo adna aadan maamada aad arkaysaan waa adna aadan waa shakhsi kamid ah shakhsiyaadka Soomaaliland ee waxa weeye aad iyo aad intii ay jirtayba uga shaqeynayay waxay ahayd xisbiga kulmiye ee xag jirka abay ahayd ee walibana aad iyo aad mucaaradka u dhaliili jirtay ayay kamid ahayd sida oo kale waa shakhsiyad waxay leedahay dabiic dabcan dadka ka yara duwan oo xukuumad kasta oo Soomaaliland timaado way la shaqeysaa wayna is afkartaan marka adna aadan ayaa waxay la kulantay Cabdiraxmaan Ciro sida oo kale waxaana la oran karaa siyaasiyiintii beesha Arab Sheekh Isxaaq dabcan way bogaadiyeen dawladda cusub ee Cabdiraxmaan Ciro siyaasiyiintii beesha Arab way bogaadiyeen xukuumadda cusub ee Cabdiraxmaan Ciro maadaama ay markii horeba la joogeen Mr Jirde haddana adna aadan iyo Cabdilaahi Darawalba ay waxa weeye xukuumadda cusub meel wanaagsan ay ka istaageen adna aadan ba shakhsiyaad ayaa waxay commentiyada ugu qorqorayaan dabcan iska maaragtay daciifnimo balse waxayna ogeyn inay siyaasaddu tahay أنا كون أحسن يا أنا كون أحسن أنا هين على وتنمي إن لسكو قاضو سيدا كله أنا هين إن لكلت تجايو بس أي تايون إن كرسي قال لكلت شيء ده أيو طب يحيرد وحلا استعماله كريانا لا استعماله ما أنت كرسي قال لك كلا قاتله أي رماتي يا ترى قرون كلا بحي تدخل أي سيدي ولا لويهن أيين أوجين أنا أدنى كم ده دخاتير تسومالي لان أهنا شخصيات كسومالي لان أنت الدولة هاي كشقين يقرأ كسومالي لان ayaa iyaduna waxay salaan ugu tagtay oo ay bogaadisay Cabdiraxmaan Ciro way hadii aan halka adna aadan yaanu kaga nimaadno Cabdilaahi Darawal waxaynu u tageynaa sanadada guud ee beesha Subeer Awal mujaahidiinta iyo sidoo kale siyaasiyiinta beesha Habar Awal oo iyaguna maanta Cabdiraxmaan Ciro la kulmay sawirkaasi waxa ku kulansan mujaahid dhagaweyne iyo sidoo kale shakhsiyaad caan ah oo Suldaan Xasan ku jiro hadii aad Suldaan Xasan iyo dhagaweyne aragto dabcan Habar Awal kale uma baahnid mana ka maqna Habar Awal waa run waa qabiil balaadan balse labadaasi meeshay joogan Habar Awal way joogtaa sidoo kale waxa halka ka hadlay iyaduna dad fara badan oo qaarkood xataa meelaha ka soo bogaadiyeen oo aad iyo aad u tiro badan oo ay kamid tahay dalada leedah dal iyo duco ee ay ku midaysan tahay beesha dabcan beesha Ciise Muuse ha u badnaado balse waxa weeye waa gudi ka shaqeysa danaha beesha Subeer Awal waxayna u hadleen sidan in la taageeriyo madaxweynaha cusub iyo dawladdiisa uu haysto guddiga ku haysto iyo madaxweyne hore waxay bogaadiyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waxayna waxa weeye isagana sidoo kale ay salaameen una mahad celiyeen qaabkii wanaagsanaa ee uu dhaqmay ee doorashada u aqbalay ee Soomaaliland u maamulay ee aad iyo aad ka wanaagsanayd ee maamusnayd ee Muuse Bixi guddiga ayaa iyaduna waxay hadalkeeda ku soo gabagabaysay hala taageero xukuumadda halalana shaqeeyo hadaba intaa waxa dheer iyaguna saraakiisha ugu cadcad jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ayaa iyaguna waxay salaan ugu tageen madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro waxayna wada yeesheen kulan waana kuwan saraakiilka kooban 3 ciidan waxaana u yimaadeen soo booqashadaada madaxweynaha wak salaamay saraakiisha bay maasan tahay
in aad daawateen ayaa rajeynaya cabdiraxmaan ciro ayaa qaabilay dabcan saraakiisha waxa weeye qaranka jamhuuriyadda Somaliland barnaamijkeena maanta intaas ayaynu ku soo qaadanaa insha Allah waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la garayso oo aad share garayso channelkan aad subscribe ta saarto waxaan aad idinka codsanayaa facebookgayga inaad share garaysaan oo aad iyo aad u share garaysaan si uu gaadho saaxiibada cusub ama dad cusub si ay ugu soo xidhmaan ulana socdaan waxa dalkooda iyo waxa weeye dadkoodaba ka dhex socda